kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka farshaxan maanta waxaan idin hayaa qormo ku saabsan sida loo sifeeyo codka ama nadiif looga dhigo qormadan ayaa waxaynu adeegsan doonaa laba software oo kala ah Format Factory iyo softwareka kale ee Audacity labadaba linkigoodu wuxuu ku yaalaa description-ka ayaad linkiga ka helaysaa oo ka download gareysan kartaa wixii ciladana technical support-ga aniga ku qaabilsan ha ka warwarin comment-iga ku soo qor wixii cilada aad la kulantid mar walba ma aha wax fudud in codka la sifeeyo waxaad aragtay codadka wariyaasha ama TV-yadu inuu mar walba kala yahay taasi ma keento ama ma sababto qalabka lagu duubayo ama goobta lagu duubayo ee waxa sababa software loo adeegsado oo codka lagaga saaro tashwiishka halkan baynu ka bilaabaynaa anigu codkaan duubay waa kan waa MP3 weeyaan marka hadduu wave yahay ama MA4 amaba MAMR waxaad soo isticmaalaysaa barnaamijka la yiraahdo Format Factory oo barnaamijkana barnaamijka download linkigiisuna wuxuu ku yaalaa description kan ku dhigay oo aad ka soo download gareysan kartaa markaad u baahan tahay mp3 ba taabanaysaa nooc kasta uu leeyahay audio uu leeyahay video uu leeyahay videoyada noocyadiisa kala duwan baad u bedbedelaysaa haddii videogaagu ahaa AVI mp4 baad u bedelaysaa hadduu mp4 ahaa AVI baad u bedelaysaa hadduu 3GB ahaa mobile lagu duubay waxaad u bedelaysaa mp4 kolba nooca doontid hadda audio rabnaa audio tagaynaa kadibna mp3 baan ku dhufanayna kolba ka doonaysid ayaad ku dhufanaysaa add file ku soo dar file-kiiba hadda ku soo daray waa kan file-kii dabeetana okay baan leenahay okay baan sii siinaynaa kadib star baan leenahay sidaa ayuu inoogu bedelayaa uuna inoo dhigayaa meesha halkuu inoo dhigayaa waxa weeyaan desktop iyo codadka ayuu inoo dhex dhigayaa markaa taasi waa hab yar oo fudud oo aad ku bedeli kartid extensionada noocyada uu codku yahay haddaba waa sax codka maan sifeynaynaa okay codka maan hayaa waa codaan sifaysnayn bal aan wada dhegaysano kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka farshaxan kan waa cod tijaabo ah oo aan ugu talagalay barnaamij aan soo gelin doono kanaalka farshaxan marka ugu horeysa wuxuu kusoo gelayaa shucaac buu kusoo gelayaa ama tashwiish kulanti wacan daawadayaal dad kale ayaa ka dhex hadlaya tashwiish baa ku jira markaa waxaanu ka saaraynaa codka inta aan loo baahnayn marka maxaan isticmaalaynaa barnaamijkii Audacity iyo Format Factory labada barnaamij waxay ku yaalaan link description-ka oo aad ka soo download gareysan kartaa iyagoo free ah waa free source code weeyaan marka Audacity baan soo furaynaa Audacity markaan soo furno file baan leenahay open baan leenahay ama hab yar oo fudud baan adeegsan karnaa sidoo Audacity halka inoo yaala intaan codka soo qaadnayno soo dhex dhigi karnaa open waan soo odhan karnaa open file open kadibna halkuu inoo yaala baan tegaynaa dadkan buu inoo yaala waa kan codaan sifaysnayn soo dhex geliyey marka inta aan loo baahnayn aynu dooranaynaa tusaale ahaan intaasi waa shucaac bay leedahay kulanti wacan inta hore shucaac bay leedahay inta hore ee shucaaca leh ee aynaan u baahnayn ayaynu dooranaynaa inta hore shucaaca leh inta hore uma baahin sawgeed kama saarayno laakiin waan dooranaynaa saasana dooranaynaa kadib waxaan tegaynaa effect kadibna noise reduction oo disable lagu cabiraa waanu 20 ku noqdaa sensitivity-guna 15 frequency smoothing-guna waanu 5 ku noqdaa marka waxaan leenahay get noise profile baan leenahay kadib baynu select all odhanaynaa kadibna effect baan tegaynaa kadibna waxaan leenahay repeat noise reduction iska yar sugaynaa
marka imika codkii waa ka saaray hadda codkii intaas waa saafi weeyaan haddaynu dhegaysano waxba lagama maqlayo waa saafi kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada kana intan unbaa baxaysa markaa waan save garaynaynaa export baan leenahay mp3 inoo qaadan maayo inta badan barnaamij yar buu u baahan yahay barnaamijkaas aan anigu hadda haynin internetna kuma jiraan kasoo qaato markaa wave baan ku save garaynaynaa kadibna wave 32 bitkaasaan 32 gaasaan ku save garaynaynaa bit markaa wave buu noqonayaa ka horena muxuu ahaa wave markaa hadhow mp3 baynu u bedelan doonaa oo format factory gaynu u bedelan doonaa markaa kan 1 baan ka dhigaynaa save okay markaa tan iska soo jarayna waxba imika uma baahanin waa kan codkii halkan bay noo soo dhigay codaan sifaysnayn oo wana markaa format factory baan ku bedelaynaa oo mp3 kaga dhigaynaa format factory baan soo furanaynaa sidii si leeg iyadoo halkaa taalla ayaynu halkan kusoo tuuri karnaa ama mp3 baan dooranaa waxaan u baahannahay imika mp3 baan u baahannahay add file baan leenahay kadibna waa wankaa ka sifaysan waa codkaa okay baan leenahay kadibna star keliyaan leenahay bis markiiba markaa uu dhamaynay isagoo mp3 ayaynu halkan ka helaynaa markiiba format factory is a useful software waa software aad u faa'iido badan markaa waa kan isagoo mp3 waa kan waa sifaysan markaa saasaa loo sifeeyaa balaynu tijaabino codka hore oo aan sifaysnayn oo shaaciisii ama tashwiishkiisii wata kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada kanaalka farshaxan kani waa cod tijaabino haddaba codkii oo aynu sifaynay aynu wada dhegaysano runtii farqi weyn baa u dhexeeya labada cod oo iskuma dhawa marka sidaas ayaa loo sifeeyaa codadka oo looga saaraa tashwiishka